السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله ما أنت إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وحنا ندرسوا قدبين دونا كيمها نقروح ضده يو مارتاي دولكان سيده لو هرمريay iyo dadka maartay dhulkooda dhistay iyo dadka dhulkooda dhisan farqiga u dhaxeeyo si aad u kala ogaataan muuqaal yar baan idin wadaagi doonaa hadii rabbi hal ka noqdo isla socod wanaagsan sidaad arkaysaanbo waxa idin muuqdo waa kaymo iyo maartay dhul buuraley ah oo dadkii lahaa ay hormarsadeen bal waxa fiiri adigu dhulkan dhirta saan u qurxan annaga waxa weeye waa ku baashaalna si kale kuma garatide waxa weeye waan ku baashaalnay dhirta saan u quruxda badan dhulkan naga mageeda badno naga madhow qurxoona dadkan laakiin waxa weeye waa dad isku aadan oo maaragtay horumar xaqiisu u joostay oo qabyaalada iyo waxa maaragtay qurunka ay annaga na lumiyay ma garanaysaa ay ka gudbay oo u soo joostay waxa weeye sidii ay wax ku qabsan lahaayeen horaan hadii Soomaali hadal u dhamayso waxay tiri ahbaabi marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay dadku inay maartay isku tashtaan oo maartay qulubtooda wadanimo ay galiyaan wadanimadu wax la heli kara ma ahan xaqiiqatan marka isku barbar dhigtaan wadamada dariska nala ah hatta ayadoo meel kale la aadan oo fog wadamada dariska nala ah sida ay u horumarsan yihiin oo dadkooda ay u horumariyeen iyo ma garanaysaa dhirtooda si loo ilaashaday iyo nabadda iyo ammaanka si loo sugay annaguna waxa weeye wax kasto oo ammaanka lagu sugi lahaa ama maaragtay horumar lagu gaari lahaa waxa weeye qabiil baa loo nisbeynayaa waxa leeyahay kani waa reehebel kani waa reehebel de ma garanaysaa iyo wax aan loo joogin iyo wixii maaragtay nadaashaday ee xanuunka ahaa ee 30 sano aan soo dhaafnay ee maaragtay xanuunka badnaayna soo maray oo maaragtay jiilka hadda anaga aan joogno iyo kuwii maaragtay naga dambeeyaba ay maaragtay u tahay fiijir xumo iyo maaragtay nolol cariiri ah sida la ajigan marka walaalayaalow waxa loo baahan yahay siiba waxa la hadlayaa ragga dhalinyarada la yiraahdo war dhalinyaroy waxa loo baahan yahay in dadka maaragtay aan ku hiranayno oo maaragtay naga horeeyo madaxda noo soo siinta noo ah ama odayaal dhaqameedka noo ah waxay ay ku khaldan yihiin inaan annaga aan ka saxno oo annaga marka hore aan isa saxno oo wanaaga iyo maaragtay horumarka maaragtay annagu marka hore aan isku dhiirigelino ka bacdina maaragtay hadii aan annagu aan isgarabsano waxa noo suurtagelayso wax walba oo khaldan oo dadka ay ku khaldan yihiin inaan kala hadli karno waxaan filayaa indhihiina inay idin macallin yihiin nimayo Soomaaliyeed gacmaha ma isqabsanaa sidaan iyo si lamid ah ma sameynaa hadee waxa weeyaan wax maqli maysaan dhageydin kuma yaalaan bal waxaan eega yaa baan idin ku dhaarashay bal waxaan eega ya alka aragta Switzerland ma Allah ku wasarash America ma still African joognaa waliba halka ugu xumayd يا دولة لعنتو دبعتها مركي أي ليلة هاي وحنفلة يا عد كسائني كدرك سنتهاي ونبيه سيدان سكودانو بالله عليك سيدان سكودانو وحنفلة يا مغال كيرا أنا قلت لك قلي إن المارتاي عن واحد كحسوسيو إن أنا سلسة داوانا أنا سلسة عرني لوكي عن صامرني آد وقروح ضبنا مارتاي لدقالي ودتك لها مارتاي تيري تعب مارتاي جيستين anaguna waxa weeye waan shidana si kale kuma garatida waan shidanay dadka wadankan hadda aan idin soo duubaya iskale waxa weeye boqolkiiba boqol anaga maartay ka nolol wanaagsan oo ama maartay hadii waxba la haysto la yiraahdo anaga ka waxaysano waa dadka maartay aad maartay u faqiirsan kooda PhD-ga ama maartay masterka waxa weeye kabo casaya anagu kabaha noo casaya guriyaha noo tirtiraan gabdhahooda maartay wada masarka digriga marka waxa loo baahan yahay marka waxa inta lagu gaaray waa dawladnimadu waxa weeye waa nidaam aad iyo aad maartay u wanaagsan oo kala dambeyn iyo hadii aan la idmaayo iyo wanaag iyo sharaf iyo waxa allaali waxa anaga naga maqan dawladnimadii ku isduugan tahay marka dawladnimadu hadii goormaan fahmeynaa 30 sano is garaacayno madaxa iska tumaynay oo is dhacayno isku fsanaynay
oon iska maaragtay hantidanadii aan iska boobaynay ilaa haddana waxa weeye ma nihin dad maaragtaa taa ayada ay u muuqata ama ka toobad keenayo waxaan filayaa inay indhihiinu idin macallin yihiin marka waxaa loo baahan yahay dhallinyaroy anigu si gaara waxaan oola hadlayaa dhallinyarada dadkaan isku eeshka nahay isku waqtigaan nahay ee dagaaladii ku dhex dhashay ilaa haddana ku dhex jiro yaan la hadlayaa si gaara warnimayahow annagu tagnay waxa weeye noloshanadina hore u dhacday oo waxa weeye ninka ragga waa 2 soddonaad 30 waa naga soo luntay 30 kan dambe annagu waxba heli mayne kuwa aan dhalnay sidii aan maaragtay aan uga badbaadin lahayn wixii annaga aan soo marnay annaga nagala baahan yahay nimayahow marka waxa weeye rag iyo dumarow nimayahow kaliya aan ku soo koobina Soomaaliya rag iyo dumar dhulka aan maaragtay fadhiga aan ka kacno aan maaragtay aan isgarabsano oo aan maaragtay sida maaragtay horumar aan ku sameyn lahayn waa inaan maaragtay ka tashanaa aayaheena marka walaalayaalow hadii hadal waa intaas uu iga dhayahay baan filayaa anigu maanta indhayn baan u soo baxay xaqiiqatan